agaasimaha waaxda dacwad oogidda Nuurdiin Xaaji ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in kiiska ka dhanka barasaabkii hore ee Kiambu Ferdinand ay waaxdaasi ka hartay. barasaabkii hore ismaamulka Kiambu Ferdinand ayaa loo haystaa in uu musuqmaasuqay lacag dhan 588 milyan oo shilinka dalka ahaa. agaasimaha waaxda dacwad oogista ayaa sheegay in xafiiskiisa la siiyey amar ka mamnuucaya in uu dacwad ku soo oogo 5 ruux oo barasaabka lala soo eedeeyey. Nuurdiin ayaa sheegay in xafiiskiisa uu racfaan ka qaadan doono go'aanka maxkamadda isla markaana uu dacwad ku soo oogi doono 5 eedeysanayaal iyo barasaabka. Ferdinand ayaa lagu soo oogay dembiye ay ka mid yihiin in xafiiska uu danihiisa gaarka u isticmaalay, in uu si ula kac ah u hoggaansami waayey sharciga la xiriira wax soo iibsiga, in uu si been abuur ah ku qaatay dhul dadweyne, iyo in uu lunsaday lacago ay dawladda ismaamulkaasi leedahay. 5 eedeysanayaal ayaa maxkamadda dembiyada geeyey codsi ay ku doonayaan in ay wax kiis ah lagu soo rogin, taasi oo maxkamadda ogolaatay. barasaabkii hore ismaamulkaasi ayaa xilka laga tuuray kadib markii lagu eedeeyey in uu ku takrifalay xafiiskiisa iyo uu baal maray dastuurka dalka ka hor inta uusan dhammaysanin muddo xileedkiisii.